waxaan ku arkay meelo badan oo nabad iyo nolol ay ku qoran tahay dowladda nabad iyo nolol anigu dowlad nabad qaanuunkaana qaanuun waaraya oo dalka Soomaaliya la rabo inuu ka shaqeeyo boqolaalka sano oo soo socota waa dowladna lama yiraahdo dowladda Soomaaliya aan u aqaana laakiin dowladda nabad iyo nolol wasiirku meesha uu ka keenay ayaa rabnaa dowladdaas dowladday tahay anigu ilaa dowladdii hay'adihii baarlamaanka ka tirsanay magacaas iskuma naqaano marka hadduu la jeedo xukuumadda ama halku dhig waqti gaar ah soconaya laakiin dowladda nabad iyo nolol meelay ka jirtaan ma aqaan dowladda Soomaaliyana waa ka tirsanahay marka waxaan rabnaa qaanuun waaraya oo ummadda Soomaaliyeed boqolaalka sano soo socota u jiraya in halku dhigyo koox markaas xukunka haysata halku dhigeeda in lagu qoro maaha su-aasha labaad xildhibaanku weydiiyey ku saabsan ereyga nabad iyo nolol marka hore kuma jiro meel qodob ka mida sharciga kuma jiro hal meel kaliya uu kaga xusan yahay buuggan oo ah warqadana qornay anigu aan qoray golaha wasiirada ugu gudbiyey oo aan leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu oo gudanaysa waajibaadka qaran ee ay u xilsaaran tahay isla markaana fulinaysa siyaasadda dowladda nabad iyo nolol ee ku wajahan kobcinta dhaqaalaha waa warqadan anigu qoray marka halkaa kaliya kaga xusan tahay sharciga qodobada kama mid aha taasna ereyga nabad iyo nolol waa sharci kelimada hadda oo fikir ka dhawaajiyey dowladda nabad iyo nolol maaha waa la qabaa ra'yigaas xukuumadda hadda dhaysa xukuumadda nabad iyo nolol iska dhaha idinka laakiin dowladda nabad iyo nolol maaha dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka taas waa la qabaa fikir oo ku mahadsan yahay